walamoy waxa ku abtirsata shan oday ayaa ku abtirsata ama sheegata aan iraahdee magaca walamoy shan jufo ayaa sheegato jufada koowaad waxa la yiraahdaa Umar Xaaji tan labaad waa Kuusow tan saddexaadna waa Goosaar iyo maxuu ahay Waaqle iyo Ibis ama Abis sida u taqaanaan shantaasi qolo ayaa sheegata magaca walamoy inkaas kulanti waxaan wanaagsan saaxiibada qiimaha leh idalahaan meel walba adduunida ka joogtaan waxaan ahay subuuyare maanta waxaan rabaa inaan falanqeeyo ama ka hadlo soona koobo ka taariikhda walamoy iyo magaca walamoy ahaan meesha ka imaaday waxaan rabaa inaan isweydiino su'aal ah walamoy nin magaciisa miya oo ay dhalinyaro abtirsanaysa ay ku abtirsanayaan walamoyga ma nin magaciisa shalay waxaan soo sheegnay shiidlo in uusan ahayn nin magaciisa ay tahay deegaan meel dad iskugu imaadeen ama deegaan in la dhihi karo dhagax in la dhihi karo shiid in la dhihi karo Soomaalida ereyga shiid waxay u taqaanaan aan hore u sheegnay saas daraadeeda waxaan niri inta aan baaritaankeeda aan haynay maanan soo arkin nin shiidla magaciisa la yiraahdo inkastoo dadka iska riixa ahaaye ay leeyihiin nin liibaan shiid la dhahayo jiray iska leeyihiin saas daraadeeda walamoy ayaan imaanaynaa maanta kaalay walamoy aan imaaday walamoy horta waa curadka shiidlo waaye waana tolweyne ayaa la yiraahdaa sidaas si la mid ah walamoy ereyga walamoy wuxuu ka imaaday asal ahaan nin magaciisa ma ahan asal ahaan walamoy wuxuu ka imaaday waa ereyga ama wax loo yaqaano kelimada waliima ayuu ka imaaday af Carabiga markii Soomaali laga dhigan waxay noqonaysaa sab ama waliima saa u taqaaniin waliima waa taqaaniin ama sab meelaha sabta laga qabo xoolaha la qasho sidaas dadkii hore reer baadiyo waxay yaqaaneen wax la yiraahdo in sanadkiiba mar ay meel iskugu imaadaan oo ay marra akhrisadaan sidoo kale in markii dugsi quraan la oodanayo marra la akhristo marra yaasiin oo kale ama marra quraan oo kale la akhristo sidaas ay iskugu yimaadeen waxa tashtay shan nin oo ugu horeeyo Umar Xaaji sidoo kale Umar Xaaji Kuusow Ibis iyo Goosaar iyo Waaqle shan qof la yiraahdo ayaa tashteen meelay iskugu yimaadeen waa shan nin oo aan isku abtirsanin markii Kuusow laga hadlaayo Waaqlena laga hadlaayo Ibis laga hadlaayo Umar Xaaji laga hadlaayna isku abtirsadaan isku hal oday ma dhalin saas daraadeeda shantaas hadda aan tiri magaceedooda waa shanta jufo ama shanta laf ee ka kooban tahay beesha walamoy ee ku abtirsata shiidlo magacaas waa shirkadda shiidlo wadata waa shantaasi oday ayaa meel iskugu timid iskuna afgaratay in ay sameystaan maadaama deegaanada ay degaan ay isu dhadhow yihiin tuulooyinka waxa ay ka heshiiyeen in ay walaaloobaan waqaaloobaan hal gaso Soomaalidu way gaso waa taqaaniin ama hal mooro ay isla noqdaan saas daraadeeda waxay isticmaaleen magaca waliima oo ah meeshii ay iskugu imaadeen ama ducadii ama raqdii ay qabeen wixii iskugu yareen marka waliima meeshaas ay ka imaaday maalintaas la kulmay waliimadii la qabay ayaa marka walamoy meesha lagu waliimeystay walamoy marka waa dhul magaciisa dhulka magaciisana wuxuu noqonayaa isla goobta ay shantaasi oday ay ku kulmeen ay isku waliimeysteen ay ku duceysteen ayna ku walaaloobeen hal jufo aan noqono ay isku yiraahdeen walamoy waxa ku abtirsata shan oday ayaa ku abtirsata ama sheegata aan iraahdee magaca walamoy shan jufo ayaa sheegato jufada koowaad waxa la yiraahdaa Umar Xaaji tan labaad waa Kuusow tan saddexaadna waa Goosaar iyo maxuu ahay Waaqle iyo Ibis ama Abis sida u taqaanaan shantaasi qolo ayaa sheegata magaca walamoy inkastoo magaca walamoyna uusan ahayn hal nin oo lagu abtirsado meesha laga keenay ereyga waliimada ama sabtaana aan sheegnay Waaqlaha xagow daga waa soo koobayna marka Waaqle xagow daga Waaqle waxaan sheegnay in uusan shiidlo ahayn yaani wax uu shiidlo ku ahayn Waaqle markuu abtirsado magac shiidlo ma galaayo Waaqle dadka Waaqlaha ku abtirsada markay abtirsanayaan meel kale ayay galaan dadka Umar Xaaji ku abtirsada markay galayaan waxay aadaan meel kale ay galayaan Kuusowga iyo Ibiskana iska badawaa sidoo kale marka ma dhixi karto nin shiidla marka la kulanto ee tiraada yaa tahay ani walamoy aan ahay shiidlan ahay marka ku yiraahdo abtirso marka dhahdid hebel walamoy ka sii hebel shiidla ma ku geyn karo abadan ka taan marka waa shirkad wuxuu iska ilaaliya sidaas aan u sheegnay Umar Xaaji wuxuu dagaa Gaafay Magadeey Timire iyo Zabuno dagaa Umar Xaaji sidoo kale Waaqluhu inkastoo uu yahay asal ahaantiisa Muuse Hejo oo ka imaanayo biri malaaq iyo dhulkaas oo ku abtirsanayo Waaqlaha wuxuu dagaa Geeda Barkaan Goosaar asigana sidoo kale wuxuu dagaa Lamawaab Zabuun iyo wuxuu dagaa Muryaale iyo Timire waxa kale oo ku soo haray biri malaaq qolada sheegata oo qaarkoodna asalka uu yahay Goosaar Muuse Hejowna soo abtirsanayo ama biri malaaq ku abtirsanayo ama Bumba Arwaaq ku abtirsanayo amba
محو هاي كوابترسنايا حسن أرواح كوابترسنايا أصل كوده وهيجو واقلعهن أيين ولا مويجا وقالة ويهين شيء لذون واي إسكشفتان sidoo kale waxa jira qolo la yiraahdo Danjeel oo iyadana garmagalayga ah oo isla deegaanada loo yaqaano aan dhahay Timir iyo Tuugar iyo Muryaal iyo Zabuun waxaan rabaa inaan halkan ku soo koobo marka asalka Walamoy intaas aan ku soo koobay